kulanto aan wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtaan waa idin salaamay fiid wanaagsan iyo idin leenahay ciid wanaagsan oo u raacinaya saaxiibada ku xiran hoyga fanka iyo suugaanta ee naga daawanaya ciid wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo dunida aad ku joogtaan waxa loo dabaaldegayaa maalmaha kuwaad iyo labaad ee munaasabada ciidul fidriga annagu soo waxay noo tahay maalinta labaad ee u dabaaldegaynaa munaasabada ciidul fidriga saaxiibada ku xiran janaaladina hoyga fanka iyo suugaanta xogta fanka iyo xulashada fankana waxaan leenahay habeen wanaagsan u diyaar garooba muuqaal kale cusub aan ku eegino munaasabada ciidul fidriga isqa qabsiga ciidani ka dhashay ciidan waxay noqotay mid ay isku khilaafaan culimada iyo waliba wadamada islaamka badankood Soomaaliya waa laga ciiday Sacuudi Carabiya iyo waliba wadamada kale ayna waa laga ciiday laakiin waa la kala horeeyay kala horeyntaas ayaan eegi doonaa iyo waliba falcelinta ka dhalatay oo saameyn badan ay ka dhalatay khilaafkan ciidan uu sababay in ay dadku ay kala ciidaan laba maalin kuwana ay ciidaan maalinta Sabtida ahayd kuwana waxay ciideen maanta oo Axad ahayd ayaan ku eegi doonaa hambalyada madaxda qaranka ee dalka Soomaaliya oo madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ugu mahad celiyay ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogaan munaasabada ciida muuqaalo laga soo duubay madaxweynaha ayaa daawad doontaan farci kaba yare ayaa kamid ah fanaaniinta sida waaweyn ee baalasha ka raftay qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed magaca iyo miisaanka ku leh sidoo kalena waxay aad u taageertay aad u naqdisay Sheekh Umar wadaadka qoyar socodka ah oo asna Soomaalida qaarkood aad u jecelin inkastoo ay jiraan Soomaali badan oo aad u dhalisan oo suufida ah ama culimada ahlu sunnada u badan muuqaalkan sheekadaas ayaan caaw gudageli doonaa daawadayaal intaan gudagelin waxaan naga xasuusinaa halkan waa hoyga fanka iyo suugaanta saaxiib ka mid noqo malaayiinta ruux ee ku xiran channelkina ama channeladina aan dhahay hoyga fanka iyo suugaanta xogta fanka waa naga daawanaysan iyo xulashada fanka subscribe dheh gambaleelkana taabo waxay ka saacidaysaa muuqaal walba iyo warbixin walba soo gelina in mobilkaaga ay kugu soo dhacaan waxaan guda geli doonaa warbixintana caawa ee saaxiibayaal u diyaar garow soddonkii cisho ee ugu dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan kadib waxaa la gudagalay in la dabaaldego maalmaha munaasabada ciidul fidriga dabaaldega ciidul fidriga ayaa noqotay mid inta badan ciidan ay kala qaybsameen dadka oo dhan dowladaha waaweyn sida Qatar, Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo wadamo badan ayaa shaaciyay in maalinta Sabtida aysan ahayn soon ay noqon doonto oo aysan ahayn ciide ay tahay maalinta ciida ah maalinta Axadda oo 3 Ramadaan la dhameysan doono wadamo ay ku jirto Soomaaliya, Ethiopia, Kenya meelo kamid ah iyo Soomaaliya oo la isku khilaafo waliba meelo kamid ah waa laga ciiday maalinta Sabtida oo dadku waxay fureen soonku 29 markay kadib markii la sheegay in bisha soonfur laga arkay meelo kamid ah inkastoo go'aankaas waa mid dawladeed haddase dadka ayaa kuwa isku khilaafay khilaafkaas ayaa ah mid saameeyay culimada dhanba culimada qaarkood ayaa taageeray go'aanka ah in la ciido Sabtida halka kuban way diideen fanaaniinta qudooda ayaa kamid ah dadkii arintaasi ka farxi kaba yare ayaa ku dhagan qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed oo ay baalasha ka rifeysayeen eegi doonaa in sheekada farxi kaba yare waxay ku qosayso qadasay janalka hoyga fanka iyo suugaanta waxaa leenahay daawadayaashana meel kasta ay joogaan hambalyo kullu caam wa antum biqeer dhammaanba ummadda Soomaaliyeed u dabaaldegay munaasabada ciidul fidriga meel kasta ay adduunyada ka joogaan waa hagaag intaan eegay sheekada kabyare iyo waliba warbixinadeedaba bal marka hore aan daawano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ummadiisa ama shacabka Soomaaliyeedba ugu mahad celinaya munaasabada ciidul fidriga bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ciid wanaagsan waxaan ugu hambalyeeyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadan barakeysan ee ciidul fidriga Allah waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkan iyo cibaadadii wanaagsanayd ee aynu gudanay intii lagu jiray bishii barakeysnayd ee Ramadaan munaasabadan farxadda leh ee ciidul fidriga waxaan ku boorinaynaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaalaysan ka shaqeynta danta guud oo amnigu ugu horeeyo midnimada iyo wadajirka kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka walaalayaal waxaan idin xusuusinaynaa in farxaddan maalmahan barakeysan ee ciida ah
inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeenna ku xeeran ee u sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yarayn oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeenna. waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameynayay cudurkan safmarka ah iyadoo lagu guda jiray bishii barakeysneed ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culayska nololeed. munaasabadan ciidda ah waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu guda jiray bishii barakeysneed. ugu dambeyntii waxaan eebbe ka baryaynaa inuu ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo dalkeenna oo nabad iyo barwaaqo ah kuna sii tallaabsada jidka horumarka. ciid wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal. haddaba saas idoo tahay ayaa Soomaaliya waxa laga ciiday sabtidii inkastoo meelo ka mid ah ciid la isku khilaafay waxaa kaloo jirtay meelo badan oo ayna xad laga ciiday xadda wadamada badi ee Carabta Sacuudiga iyo wali wadamada ugu waaweyn ayaa xadda laga ciiday kadib markii ay sheegeen in la dhameysanayo bishan oo 30 la geenayo. wadaadada culimada Soomaaliyeed qodooda ayaa ayna arintaasi ka hadlay. Sheekh Umal ayaa kamid ah xubnaha ugu firfircoon ee sida weyn kaga hadlay arintan wuxuu ku taageeray go'aanka dawladda ee ahaa in sabtida la iido maadaama lagu kalsoonaado dadka Soomaaliyeed ee Islaamka ah ee arkay bisha. farxii kabeeri qodooda way ka hadashay oo si weyn ay u difaacday Sheekh Umal hase yeeshee waxay baalasha ka raftay wadaad kale oo Nairobi degan kuwaas ayna ka digay in la ciido sabti oo dalbadeen in bisha 30 la dhameeyo oo 30 Ramadaan la dhameeyo kadibna la ciido maalinta Axad. fanaanada codka dabacsan leh ee Soomaaliyeed fanaanada liira farxii kabeer ayaa si weyn u difaacday Sheekh Umal kadib markii wadaadku ku dhawaaqay in maalinta sabtida ah ay noqoto maalinta ciida ay koowaad Ciidul Fidr kadib muuqaal laga soo duubay xilli culimadu qudooda isku khilaafeen qaarna ay xad yiraahdeen qaarna ay sabti. wadaadka Sheekh Umal ayaa kamid ah shakhsiyaadka ugu firfircoonaa ee maalinta sabtida ay yiri in la ciidi doono. wadaado badan ama culimo badan oo weyn caan ah Soomaalidu taqaano ku nool London ee Britain ayaa ina ka soo horjeesa hadalka Sheekh Umal kuwaas oo sheegay ama ku tilmaamay mid aan suurtagal ahayn oo ayna sheegay in maanta xada in la ciidi doono. farxii kabeer muuqaal ay iska soo duubtay barteeda internetka ayay baalasha kaga raftay qaar kamid ah culimada ku nool magaalada London waxayna sheegtay in hadiiba Sheekh Umal uu yiraahdo waa la ciidayaa sabtida ma ahan waxaan ka hadalno waxayd inaan taageerno Sheekh Umal waxa uu kamid yahay wadaadada Soomaaliyeed kuwa ugu waaweyn ayay tiri farxiya oo weerartay culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ee dalka Britain waxay sheegtay inay wadaado mayal adaga sida hadalka u dhigtay farxiya hase yeeshee waxay si weyn u dabooshay wadaadka iyadoo ay taageertay Sheekh Umal waxayna tiri Sheekh Umal waa ninka kaliya ee Soomaalida ay aad kaga dambeeyaan. waxay tiri reer North America haddii aan ahnay waan ciideynaa waliba waxaan ku ciideynaa anagoo bisha arag laakiin go'aanka sheeqayna oo Sheekh Umal ayay raacisay. waa caalimka ugu weyn ee Soomaaliya sheeqayna Sheekh Umal waa inaan cadeynaa oo aan qaadanaa wax walba ayay si raacisay iyadoo waliba si weyn aad moodo farxii kabeer inay ku dhagantahay oo ku dhaga hadlaysa culimada London ku nool kuwaas oo ka hor imaaday Sheekh Umal sheegayna Sheekh Umal inuu yahay nin xaq jir ah aysan arintooda la raaci karin. hase yeeshee khilaafkan culimada Soomaaliyeed u dhaxaysay ayaa dhalisay in badi culimadu ay ku kala qaybsamaan go'aanka ciida. saas oo khilaafka culimada ayaa ah mid dadku dhan ay ka wadasinaayeen qaarna sabti iyo ciidan kuwana waxa ay ciidan Axad. reer Minnesota ayaa badi waxa ay sheegtay farxii kabeer inay ciidan maalinta sabtida ah oo ay team Sheekh Umal oo ay wadaadkaas ay taageersiin. farxii kabeer muuqaal ay iska soo duubtay barteeda Facebook ay soo dhigtay iyana arintaasi ku sheegtay.
وعقاك مركل وحلينا هيدا وداش نقول حيرنا هو يقفن كي يسوقان تعيد ونحسن ملك الصاع جوكتان ضود لا نقدر حلود بالدقنا عيد ما عيد كدي من وحن سكوس الله بدنا هو يقفن كي يسوقان تحن بيلعب دنا مو باهين تمو قلدا نشي كوين كنا يقولي waxyaabaha kale xiisaha gaarka leh ee daawadayaal aad nooga barateen inaad naga daawateen wali waxaan diiradda saari doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimaha fanka iyo sugaanta iyo waliba taxanaha taariikhaha fanaaniinta da'da yar aan soo qaadan doono kuwaasoo joogto inoo noqon doonta toddobaadyada soo socda hadduu ilaa raalli ka noqdo muuqaalkiina caawa daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mid la mid ah muuqaalkan intaan ku kulmi doono waa saaxiibada hoyga fanka iyo sugaanta leh nabadgelyo